بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. waxaan Allah subxaanahu wa tacaala ka baryayaa inuu yasiibiyo kelimadda xaqa ah. sidaa la socotaanba waxaan jeclahay marka hore inaan u mahad celiyo dhammaanba xubnaha kooxda tala ku nool oo runtii labadii wiig ee lasoo dhaafay qabtay shaqo aad u muhiim ah, wax badanna u qabatay ummadda Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed. aad iyo aad ayaan waxyaabihii labadii wiig ee ugu dambeeyey ama dhowrkii beri ee ugu dambeeyey ka socday dhammaanba miidiyaha iyo social mediaha intaba kulligood u soo fadhiistay inaan caddeeyo dhowr arrimood runtii oo baryahanba laisla daba wareegayey iyo waraysi aan bixiyey ama live aan soo galay dhowr beri ka hor. ugu horreyn waxaan rabaa inaan mar kale ugu celiyo bulshada Soomaaliyeed. waxaan ugu socdaa dagaal runtii aad iyo aad u qaraar. dagaalkaasi waxaa ku haya waddankeena Soomaaliyeed hay-ado shisheeye oo ka turjumaya danaha waddamo shisheeye. waxayna adeegsanayaan dad ka tirsan shacabka Soomaaliyeed ee iyagu u muuqda inay ka fakarayaan danta shacabka Soomaaliyeed. waxaan jeclaa marka inaan arrintaa yaraha iftiimiyo anoo ku sii xiriirinaya weliba midda la socota eedeymaha aniga la ii soo jeediyey. marka ugu horreysa waxaan rabaa mahadcelinta kadib markaan u mahad celiyo dhammaanba taageerayaasheenna iyo shacabka Soomaaliyeed ay taageeray. markaan u mahad celiyo waxaan rabaa inaan ku bilaabo inaan si gooniya ugu mahad celiyo shakhsiyaad leh rag iyo dumar ee runtii difaacay shakhsiyan aniga cirdigayga, sharaftayda iyo shakhsiyaddayda iyo familkayga. waxaan idin leeyahay aad iyo aad ayaan ugu diirsaday. waad mahadsantihiin. waxaan Allah subxaanahu wa tacaala idinkaga rajaynayaa in Ilaahay idinka abaalmariyo. aniguna iyo kooxda tala ku noolna waan ognahay waxa aad u gasheen annaga iyo shacabka Soomaaliyeed dhammaanba. waxaan jeclahay inaan u gudagalo marka tuduucda arrinta. waxaan codsanayaa in dhammaan dadka ku jira laynka ay sii sheergareeyaan oo ay la wadaagaan beejajka kaleeto si ay u gaarto arrintani bulshada oon uga hortagno beenta iyo dagaalka lagu wado waddankeena. dhowaan sidaan horba idinkugu sheegaba intii aan la faafin dacayaddii iga dhanka ahayd ee aad u fool xumayd ee lagu sheegay inaan ahay qof dilaa ah iyadoo danta laga lahaa ay ahayd
in la burburiyo sumcaddeyda iyo shakhsiyaddeyda si loo burburiyo dhambaalkii aan waday anigoo ahna guddoomiyaha kooxda tala ku nool ee u dhaqaaqda bedelidda dhaqamada qaldamay ee Soomaaliyeed iyo taariikhda qaldanta ee Soomaaliyeed sida in la bedelo calanka iyo astaanta qaranka in la tirtiro haybta koorka in dib loo qoro taariikhdii waxaan sameeyay statements ama hadal aan iri ayaa muddo waxaa ku mashquulsanaa dadka cadowga Soomaalida ah oo runtii ka soo horjeeda diinta islaamka dhaqanka Soomaaliyeed iyo horsocodka waddankeena Soomaaliyeed nacabna in waddanka Soomaaliyeed dib loo xoreeyo oo laga xoreeyo dhaqamada khaldan iyo diimaha khaldan ee naloo geliyey ama dhaqankeena ama calankeena ama astaanteena qaranka dadka iyagaahi waa cadowga waddanka Soomaaliya waa cadowga diinta islaamka dadkaasi markaa saan hore idinku sheegaba markaan ogaaday in ay soo socoto in la dacaayadeeyo isla markaasna ay soo socoto in marqaatiyaal la keeno waxaan qaadanay go'aan haddii aan ahay reer Talkuno go'aankan qaadanay wuxuu ahaa inaan anagu hogaamino inaan jidayno ama jihayno dadka marqaatiyaalka ee ay keensanayaan waxaa laga yaabaa dadka qaarkiis inaysan fahmin marka aan leeyahay inaan jihayno marqaati qof cadow kugu uu wato sharciga caalamka ama maxkamad marka la joogo waxay u kala baxdaa maxkamaduhu mid la yiraahdo public opinion in maxkamad caadi ah maxkamadda public opinion-ka la yiraahdo ayaan hadda ku jirnaa waa maxkamadda aan ku doodayno aniga iyo kuwa qaran dumiska ee ka soo horjeeda dhaqanka diinta iyo horumarka dalkeena iyagoo u arkaa inay ka helayaan sandareerto una adeegaya gacmo shisheeye ama dowladda shisheeye waxaan jeclahay marka inaan idiin sheego waxa aan ka wada jihaynta aan jihaynay marka aad maxkamad tagto aadna tahay lawyer ama sharci yaqaan aad tahay waxaad awood u leedahay haddii aad og tahay in waxa la soo wado ama kiiska adi kaa soo horjeeda uu been yahay in aad jihayso marqaatigaas waxaad ku jihaynaysaa inaad u sheegto ama aad keento erey been ah laakiin isaga la qurxoon markaad ereygaas beenta oo isaga la qurxoon keento qofkii wuxuu sii raacayaa ereygii beenta isaga la qurxoona isla markaasna wuxuu galayaa khaladaad fara badan oo hadhow aad kaga dabatay kartid maalintii markii aan hadlayay waxaan iri waxaan jiray 16 sano 17 sano 16 sano 17 sano ujeedadii aan ka wada waxay ahayd arrintaasi in dadka marqaatiga noqonaya ay raacaan oo ay ka dhigtaan halku dhig kadibna ay inkiraan waxyaabo xaqiiqo ah oo hadhow gadaal ka soo baxaya laguna qaban karo sida dhacday markii aan iri waxaan jiraa 16 17 marqaatiyaalkii la keenay waxay la yimaadeen dhowr shay oo maanta aan rabo halkan idinku tuso ama aad aragteenba inay been yihiin kow waxay yiraahdeen wuxuu ahaa Sufyaan Sheekh Axmed Jabhad sidaad ku maqasheen nimanka la soo adeegsaday dawladaha shay soo adeegsadeen ee bixiyay marqaatiga mid wuxuu yiri waxa uu ahaa staffka goonida ama bodyguardka goonida oo khaaska u ah wasiirkii gacmo dheer nu dhignay ee ahaa inaan hogaamino dadka marqaatiga nagu furay ama marqaatiga beenta igu furay arrintaas marka aan saxo anigu intii aan radio Muqdisho ka shaqo galin waxaan ahaa macallin waxaan ka shaqaynayay gobolka Jubbada Dhexe degmada Jilib waxaan macallin ka ahaa dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Nuur Xuseen waxaa maanta wali jooga waxaa halkan ila jooga waxaa galabtay ila joogay mid ka mid ahaa ardadii aan macallin ku ahaa waxaan ahaa macallin dhiga maadada carabiga iyo diinka luqadda carabiga iyo diinta islaamka muddo ayaan ahaa reer Jilib waa yaqaanaa magaca la igu yeeri jiray markaasi
ka sokow magacayga ii qoran ee sharciga ahaa waxaan lahaa naynaastaydu ma ahayn taakeeye reer jilib iima yaqaanaan taakeeye reer jilib waxay yaqaanaan magaca kale wuxuu ahaa ustaad Michael waa ogahay inuusan qurux badnayn laakiin waxaana nin yar oo aad u labis badan magacana waxaa igu dhejiyey ardadii aanu ahaa macalinka maantay qofka reer jilib joogay waqtigaa joogay ee xusuustaahi wuxuu xusuusan karaa ustaad Michael qofkii la oran jiray macallin dhiga carabiga diinka ka dhiga dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Nuur Xuseen wax xusuusan kartaa waxaan jeclahay marka inaan xuso dadkii aan saaxiibada ahay aan isla soo jirin sida ninka la yiraahdo Daawud Cali Raaxo ya caalin oo ahaa nin gaal jecla iyo Ibrahim Maxamed aadan Ibrahim Akhiro oo ahaa nin garaa iyo gaal kacyo magaciisa ma xusuusto oo ahaa shiiqal waxay ahayn saaxiibadayda dadka aan sida goonida isku dhownahay waxaan codsanayaa marka ardadii waqtiga aanu ahaa macalinka carabi iyo diinka ee dhiganaysa dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Nuur qofka videogan maqlaahi inuu soo duubo video ama uu la soo xiriiro miidiyaha dad badana caan ku noqday inay rifaan Sufyaan Sheekh Axmed adigu dhinaca ka gal ila soo xiriir ama la xiriir social media u sheeg marqaatigaas waa marqaati xaq 1991 markii Siyaad Barre uu ka baxay Muqdisho dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Nuur aan ka shaqeynayna ay burburtay dawladii ciidamo ay soo galeen la isku xabadiyay magaaladii Jilib waa ka soo tagay waxaan imid radio Muqdisho markaan Muqdisho imid waxaan imid radio Muqdisho oo markii horeba aan jeclaa xiisayn jiray dhowr mar intii Siyaad Barre uu joogay markii aan imaadoon xamar soo booqdo aan tagi jiray inaan noqdo wariye meeshii ayaan imid halkaas ayaan shaqada ka bilaabay xaqiiqdu waxay tahay waxaan ahaa nin ka firfircoon kana cilmi badan dadka intooda badan ee ka shaqeynaysa markaas radio Muqdisho taasi waxay ka soo horjeedaa in la yiraahdo jabhad uu ahaa waxna ma uusan aqoonin ama wuxuu la socday ciidamadii General Aidi haddii aan 1991 aan Jilib ka imid haddii aan ahaa macallin dhiga maadada carabiga diinka isla sanadkaasna haddii dawladii ay sii jiri lahayd ku xaroon lahaa jaamacadda waxaad fahmi kartaan in aan ka aqoon badnaa dad badan oo aan soo maray wadada aan soo maray waa fahmi kartaan markaad macallin noqonaysid tababarka loo baahan yahay iyo wax loo baahan yahay soo martid arrintaasi waxay ka soo horjeedaa completely marqaatiga ay fureen saddexdooduba isku raaceen inaan ahaa nin jabhada ahaa nin bodyguard oo waardiye ah watay qori iyo tuute arrintaas ayaa diidaysa nin mutacallima polished ah soo shaqeeyay muddo ku soo dhaqmay gobolka Jubbada Dhexe weligiis aan jabhad noqonin weligiis aan qori qaadanin waad fahmi kartaan description-ka ay bixiyeen inuu yahay qalad sababta keentay inay description-kaas ama iga bixiyaan sharaxaadaasna waxay ahayd because aniga ku hogaamiyo waxaan ku iri markii hore waxaan jiray 16 sano 17 sano haddii aan sheegi lahaa taariikhdan aan hadda maanta idiin sheegayo ma aysan dheheen wuxuu ahaa jabhad ma aysan dheheen wuxuu la socday ciidamadii General Aidi because waxay ahaa ladi logical wayna soo hubi lahayn xaqiiqdii oo wax fudud oo la heli karo in xaqiiqda ay tahay waxa aan sheegayo inaan macallin ahaa laakiin maadaama ay aamineen 17 sano 16 sano inuusan noqon karin macallin waxay go'aansadeen inay igu cambaareeyaan ama dawsha ii saaraan waxaanan aniga ahayn taasi waa qodobka koowaad waxay kaloo ku dhaceen dabinta aan u dhigay oo ahayd inay diidaan inay sheegaan laba qodob oo kaleeto oo beena kow waxay yiraahdeen markii falkii lagu dilay nimanka afarta ay sheegeen
waa sida iyagu sheegeen ayaan ay yidhaahdeen igu eedeeyeen aniga waan ka soo cararay raadiyo muqdisho iskuma aysan raacin arrintaas nin ka mid wuxuu yidhi waa ka soo cararay ninna wuxuu yidhi wuu sii joog waxaan rabaa shacabka soomaalida inaan la wadaago sidaan horeba waraysi ugu bixiyey inaan ahaa wariyaha khaaska ah ee ra-iisul wasaarihii markaasi jiray cumar carte qaalib waxaan sidoo kale access furan u lahaa inaan tago xafiiska madaxweynaha cali mahdi markaas haddii ay sidaasi xaqiiq tahay marka nin wariyaa oo sida ay sheegeen intuu sidii xoolihii ula baxay niman wariyaa ku dilay bildinka ama sartii wasaaradda warfaafinta musawicii u dhowaa intuu midba watay ayadoo loo joogo barqacad loo jeedo ku soo toogtay soo baxay mid kala watay soo toogtay macquul ma noqoteen nin ra-iisul wasaaraha ama madaxweyne inuu ogolaado xafiiskiisa ama loo ogolaado inuu noqdo wariyaha ra-iisul wasaaraha waxaan kaloo sidoo kale macquul noqoteen haddii aan ahay nin aqoontiisu ay liidato oo iska xoogsaday ayadana layma ogolaadeen ragga markhaatiga furay markhaatiga beentaa furay nin ka mid ayaa wuxuu yidhi qualificationkiisa ma uusan gaarinba because nin wax barta ma uusan ahayn waxaa laga rabaa sidii uu ku diidi lahaa waxbarashadaydii aan soo maray ee markhaatiga lamaantay waxaa kaloo cajiib ah dadka markhaatiga loo qabsaday nin ka midihii maba jooginba waqtiga ayagaa radio muqdisho ninkaasi waxaa annaga haddaan nahay reetalo ku nool naga mamnuuca inaan shakhsi magac dhowno annagoo diidan in ay meesha ku dhimato respectability-geena iyo sumcaddeena waxaan u taagannahay inaan saxno dhaqanka taariikhda iyo ummadda soomaaliyeed waxaan nahay macallimiintii soomaalida waxaan isu aragnaa inaan nahay macallimiinta soomaalida waxaan isu arkaa inaan nahay macallin qaranka soomaaliyeed raba in waxbaro bulshada soomaaliyeed sidaa daraaddeed iima habboona inaan qof magaciis sheego balse waxaad garan kartaa nin ka mida ragga markhaatiga furay maalintaa dhibkaasi dhacayo sida ay taariikhda ku sheegeen oo la yidhi 8 April bay ahayd qofkaasi ma uusan joogin muqdisho iyo radio muqdisho mid waxaa marka wax lala yaabaa adigoon joogin radio muqdisho adoon even joogin muqdisho inaad markhaati furtid oo tirahdid dad buu dilay was something very shameful waxay caddaynaysaa taasi marka beenta iyo waxaas laygu soo eedeeyey inaysan waxba ka jirin waxa uu shakhsigaasi qiranayaa in warka loo soo sheegay asagu uusan goobjoog ba ahayn isagaa qiranaya waxaa kale ninka kale uu qiranayaa ninka ugu hadalka dheeraa wuxuu qiranayaa in marka ugu dambaysa waraysigiisa wuxuu leeyahay waa ku tuhunsana waryuhu dhowr mar uu ku celiyey inkastoo waryuhu laftirkiisu uusan samaynin waraysi cadaalada uu ku celiya dhowr mar wuxuuna runtii ku celiyey ama uu weydiiyey in uu goobjoog ah mar kasta wuxuu yidhi goobjoog baanan ahayn wuxuu yidhi waa la ii sheegay haddii marka ay sidaa tahay haddii loo sheegay markhaati ma noqon karo hore ayaan waxaan idiin idhi waxaa laygu eedeynayahay waan wax waxba ka jirin waxaa laygu eedeynayahay ma aha wax xaqiiqa maantay waxaa bulshada soomaaliyeed wacad labada qofood iyo saddexda qofood baan dhaho oo la yidhi waa markhaati nool maaha waxa loo baahan yahay waa markhaati goobjoog ah oo xaqiiqda og xaqiiqdu walaalahayga soomaaliyeed ee islaamka ahu waa sidaas waxaan kaloo rabaa inaan xuso dhowr dhacdo ee ka dhacday intii aan joogay muqdisho sanadahaas sufyaan sheekh axmed waxaa allah subxaanahu watacaala sabab oo dhigay inuu dad badan oo beelaha laygu eedeeyay maantay inaan dhibka u geystaya anigu aan badbaadiyey waday baabuur saaray amba bixiyey waa wax xaqiiqoo jira
waxaan aaminsanahay way fahamsan yihiin wayna ogyihiin ragga aan warkaas ula jeedo waxaan jeclahay marqaatiga inay furaan maanta xaqiiqdu waa sidaas qaar aan uga kacay sariirtayda jiifiyey ilaah baad badbaadiyey laakiin aan anigu aanan u ahaa sababta dadka waardiyeynayay radio muqdisho ee ninku markii uu waraysiga bixinayay uu ku tilmaamo mooryaan iyo wixii la mid ahi waxay badbaadiyeen boqolaal qof oo sumcad maanta ay ku leeyihiin Soomaaliya dhexdeeda laguna ogyahay waxay taasi muujinaysaa marka inuu been kale uu sameeyo qofkaas xaqiiqdan uu waxba ka ogay midaas waxaan ugu gudbayaa qaybtii marqaatiga iyo sidii anagu aan ugu talagalnay inaan ayaga u hogaamino oo aan ugu qasabno inay sheegaan been waan ku guulaysanay sababtii aan u sheegay oo aan u iri 17 sano 16 sano jiraana waxay ahayd sidaas maantana waxaa banaanka taala beentoodii waxaad kaloo ka dhadhaminayseen nimanka marqaatiyaalka bixinaya qaarkood inay ku jirto caadifad xanaaq ah iyo been ay ka sheegeen xataa wax waaqici ah oo idinku aad ogtihiin sida nin ka mid ah inuu yiri 4 xaas oo hal mar wada guursaday waxaad ogtihiin taasi inaysan xaqiiq ahayn wuxuu kaloo yiri ma ahayn inuu calanka wax ka sheego haddaan marka intaa iri waxaan rabaa marka inaan u galo arrinta calanka oo runtii ah iyo waxa keenay sababtaan oo dhan sidaan hore idinku sheegaba arrinta calanka waxaa la igu siiyey waxaa lagu siinayaa lacag ee ka har waa diiday inaan lacagta qaato lacagtii iyada ahayd maanta waxaa la siinayaa dadkaas marqaatiga beentaa furay iyaga ayaa qaadanay maadaama budgetkaasi uu ahaa budget loo qorsheeyey in qorshahan lagu joojiyo maadaama anigii layga jooji waayey go'aanka la qaatay wuxuu yahay in layga hor keeno dad aniga cadawiya tashush la igu furo sumcaddayda la dilo si arrintan aysan u socon waxaan rabaa marka arrinta calanka inaan wax yar ka iraado waxaan aaminsanahay bulshada Soomaaliyeed inay ka dhargan tahay annagu haddaan reer tal ku noolnahay ma u aragna calanku inuu yahay calan qabiil umana bedelaynin inuu yahay calan qabiil ugumana doodaynin inuu yahay calan qabiil waxaan u aragnaa calanka maantay Soomaaliya ay haystahay inuu yahay calan uu leeyahay qaranka Soomaaliyeed qaabkay rabta baa ku timaad waa ognahay in la ku siray waa ognahay in la ku khiyaamay waa ognahay inuusan run ahayn waa ognahay in ay ku jirto calaamada diina kale lagu caabudo idinkuna maanta waana la ogtiin wax idinka qarsoon ma astaanta qaranka calaamad kristaana ku jirta anagana ma samayn qof Soomaali ma samayn oo mana qorna qof sheegan karaa ma jiro ama cawaale ama qof kale ma sheegan karo calanka Soomaaliyana taariikhdiisa banaanka dhignay maantana qof Soomaaliya oo awood u leh inuu nala hor fadhiisto oo nagala doodo oo u difaacay ma jiro hadduu jiro banaanka iskeen laakiin in la caayo ama aniga sumcaddayda lagu ciyaaro ama been la iga sheego waa shay aad u falxun saan hore idinku sheegana arrintaas in la igu sameeyo ma aha wax aniga la ii wado 30 sano ayaa u dhaxaysa maalinta dhacdadan ilaa iyo maantay cidna iguma dhigin mana qarsoonayn anigu caalamkan marayay macalinaan ahaa intaan joogay Mareykanka waxyaabo badan ka qayb galay inta markaan joogay sida aad maqasheen waxaana nin muctarif oo bulshada dhexdeeda laga ixtiraamo oo loogu yimaado talo iyo aqal loogu yimaado waxaana nin mutacallima qof soo raadsada male laakiin maantay markii ay timin calanka halkaas ay baashu ku dhalatay waxaan rabaa marka inaan galo taariikhda calanka qayb yaroonan weli aanan taaban qaybta aan weli taaban waxay tahay shakhsiga la siiyay calanka ee la yiri calanku sameeyay waa kuma Hooys Maxamed Cawaale Liibaan aan idin soo koobo taariikhdiisa marka waa muhiim inaad fahamtaan waayo waxay kaloo cadaynaysaa sida naloo siray oo naloo qiyaamay iyo sababta ninkaas loo siiyay abaalka calanka ama credit calanka
maxamed cawaale liibaan muqdisho ayuu soo galay asagoo nin yara wuxuu ahaa derbi jiif taariikhda aa qoraysa tv-ga puntland waraysi uu nin ka bixiyey ayaan ka soo xiganay arrintaas waxaa kaloon ka soo xiganay buugaag qoran oo taariikhda soomaaliya ku qoran sida dictionary of Somali history and leaders oo qoran leeyahay maxaa xaaji sida aan aaminsanahay magaca hadaan qaldan balse available ah la heli karo talyaaniga waxa uu urursan jiray ilmaha darbi jiifka iyo kuwa agoonta wuxuuna gey jiray iskuullada la yiraahdo missionary schools waa iskuulka ama meeshii lagu barayay in la gaaleeyo ilmaha lana baro say wax u gaalayn lahaayeen waxay la mid tahay Catholic religion marka la yiraahdo sida dugsi quraanka oo kaleeto kaliya maaha in lagu barayo diintii waxaad also practice garaynaysaa waxaad samaynaysaa in aad practice samaysid practice means in aad u sujuudid mactabkii inaad dhunkatid inaad samaysid waxa la dhaho trilogy oo macnaha 3 in 1 aad macnaha ku samaysid saddexdii xalka haba ahayd iyo caabuditaankii kaleeto practice ko dhan inaad samaysid maxamed cawaale liibaan wuxuu ka soo baxay dugsigaas markuu ka soo baxay dugsigaas wuxuu fluent ku noqday luqadda talyaaniga shaqadii ugu horeysay markii talyaaniga sameynayeen ay samaysan jireen meeshaas wuxuu ka ahaa kabalyeeri inuu geeyo khamriga inuu adeego ayaga inuu ka shaqeeyo shaqadiisa halkaasi ah maaha waxaan abuuranayno waa wax qoran oo taariikhda ku qoran Bar Savoy markii uu muddo joogay oo loo bogay ninkan shaqadiisa talyaanigu u bogay waxaa loo qaatay xoog hayn inuu u noqdo xafiiskii talyaaniga uu ka maamulayay gumaysigii Soomaaliya sidaa daraadeed wuxuu qayb ka ahaa wuxuu caawinayay xasuuqayaashii dalka iyo dadka Soomaaliya waa taariikh qoran taariikhana aniga sameeyay maaha Secretary of the Colonial Generals wuxuu ahaa xoog hayn generaaladii gumaysiga waday dadkii dilayay dalka sida ninka la yiraahdo Graciano kala taqaanaan oo daldalay ma dilin xataa uu daldalay boqolaal kun oo Soomaaliya markii dagaalkii labada adduunka uu soo xogeystay ee laga guuleystay Talyaaniga ee Talyaanigii uu baxay ee Ingiriisku uu la wareegay dhammaan Soomaaliya waxa haddana uu xoog hayn u noqday generaalkii deganaa gaalkacyo ee Ingiriiska ahaa ee la wareegay qaybta Soomaaliya qaybtan dhinacan Soomaalida taariikhdiisu marka waxa ay tahay inuu ka soo shaqeeyay baarkaas laba marna uu xoog hayn u ahaa caawinayay dadkii gumaysanayay waddankeena waxaad taqaanaan ama aad fahamsantihiin haddaad Soomaali tihiin shakhsiga lagu aamino shaqada noocaasa inuu gacan yaro u noqdo jarnaalkii ama dadkii ama xafiiskii waday gumaysigii iyo xasuuqii waddankeena ee la rabay in la ogaado yaa gaarsiinaya Soomaaliya dawladnimo waxaa ku dooday Ingiriiska iyo Talyaaniga ku loolamay Ingiriiska iyo Talyaaniga markay ku loolameen waxaa garab istaagay Talyaaniga 7 xisbi oo Talyaanigu uu fangareeyay samaystay oo la dhihi jiray ururka shaqada iyo shaqaalaha maxamed cawaale liibaan waraysigiisii uu bixiyay 1983 ayuu ku sheegay asaga wuxuu leeyahay 7daas xisbi waxaa fangareynayay lacagta siinayay iibsaday Talyaaniga Israelna waxay ka heli jirtay waxa kaliya oo dhaqaale soo gala maamooyinka ganacsada iyo odayaasha iyo dadka Soomaalida haddii xaqiiqdu marka ay sidaas ahay maxamed cawaale liibaana sida taariikhda ku qoran uu ahaa nin u dooda ama ay soo saarteen ururka shaqada iyo shaqaalaha maxamed cawaale liibaan oo hor kacaya ama leader ururka shaqada iyo shaqaalaha waxay u ololeeyeen waxay rabeen ku kalsoonaayeen in 30 sano Talyaanigu uu Soomaaliya si haysto waxay aaminsanaayeen oo Talyaanigu ka dhaadhiciyay in Soomaaliya dawladnimo loogu diyaari karo 30 sano 10 sano inaysan macquul ahayn halka SYL ay ku doodaysay in 10 sano lagu diyaariyo dawladnimo Soomaaliya gacanta loo geliyo
oo 10 sano uu ku diyaariyo gumaysiga Ingiriiska sababta ay taas ka wadana waxay ahayd haddii la qaada lahaa fikirkaas waa fikir uu horboodayay Cabdullaahi Ciise iyo rag la midihii Soomaaliya dhammaanteed maanta shanta Soomaaliya waxay noqonaysaa hal xabo way kulligeed Ingiriiska gacanta ugu jirtay halka Cawaale Maxamed Cawaale Liibaan iyo raggiisu ay ku doodayeen Soomaaliya in la gaarsiiyo xornimo ama dawladnimo 30 sano kadib waxayna ahayd dantii Talyaaniga saad ogtihiin waxa lagu dilay waqtiga isaga waxa la dilay ninkii safiirkii Egypt Masar u joogay Soomaaliya oo runtii Talyaaniga ku qasbayay ama fiirinayay in Soomaaliya xornimada la gaarsiiyo raggii dilay waxay ahaayeen rag ka tirsan ururka shaqada iyo shaqaalaha ninkii midida gali in Soomaaliya waa oo ka soo horjeeday in Soomaaliya 10 sano xornimo lagu gaarsiiyo balse rabay Soomaaliya in Talyaaniga loo daayo in Talyaanigu soo dirsado waa maadaama Maxamed Cawaale Liibaan uu taageero fikirka noocaasa hormuudna uu ahaa Talyaanigu waxa uu ku abaalmariyay in loo ogolaado sheegashada calanka maantay aan haysan taariikhda rasmiga ah waa midaas taariikhda xaqiiqda ah waa midaas waxaa jirta taariikh fara badan oo aan hayno oo ku saabsan dad fara badan oo maanta taariikhdu ay u sheegto si fiican inaysan ahayn taariikhdaas haddaan reer tala ku nool lahay waxaan qaadanaa go'aan ah inaanan sheegin waayo waxaan u aragnay sheegitaankeedu wax dana oo ugu jirta qaranka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed inaysan jirin balse inay dhaawici karto ama ay niyadda ka xumayn karto shakhsiyaad Soomaaliyeed oo maantay dadkooda ku dhex jira oo islaam waxaan rabaa marka taariikhdu inay sidaa u caddaato in dadku ay ogaadaan waay Maxamed Cawaale maxaa loo siiyay shaqadii iyo taageeradii uu siiyay gumaysiga Talyaaniga iyo shaqadii dheeradu u soo qabtay intii gumaystu wax suuqay taariikhdu waxay qortaa inuu ahaa nin akademig ma ahayn taariikhdu waxay qortaa inuu ahaa halgame ma ahayn labadaba ma ahayn taariikhda ayaa u diidaysa aniga ma qorin taariikhda ma aan noolay waqtiga isaga waxaan baaritaan ku sameynay waxaan soo ogaanay xaqiiqdu inay sidaas tahay waxaan rabnaa marka shacabka Soomaaliyeed inaan la wadaago hal su'aal haddii walaashayda ama walaalkayga islaamka ah aad fahamsan tahay garatay ayna ku caddaha maantay calanka aan haysano inuusan ahayn calan annaga aan samaysanay ay caddahay shaki uusan ku jirin isla markaasna ay caddahay inuusan naga turjumin wax Soomaalinimo islaamnimo dhaqankeeni taariikhdeeni uusan ka turjumin haddana aad ogtahay in uu yahay calaamado diineed oo anagu aan laanahay ku jirto anaguna islaam aan nahay nala amray inaan gaalada calaamadahooda iyo dhaqankooda aan khilaafno sabab calankaas aan ku haysanahay ma jirto wadana wuxuu horumar gaaraa dawladdu waxay fiicnaataa waxa la hormaraa oo technology-ga lagu hormaraa marka dawladdu ama wadanku uu diyaar u yahay inuu sameeyo renovation guri markuu duqoobo dib baa loo habeeyaa wax walba waa la cusboonaysiyaa caalamka technology-gu 24 saac isbedeshaa maalintaan anigu dhashay iyo maanta isku mid maaha maalintaan dhashay iska dhaaf aaladan aan kala hadlayay wax u dhow ma jirin baabuurka markaan arko ayaan la yaabi jiray maantana waxaan awood u leeyahay anigoo fadhiyo gurigayga ama xafiiskayga inaan la hadlo malaayiin qof haddii aan ku dheganaano marka oon dhahno calankan inaa wajadnaa aabaa'ana in fact-na aabbayaasheena uusan ahayn gaalo Talyaaniga ay ahay waxaan dhaawacaynaa qarankeena iyo waddankeena waxaanan u diidaynaa inaan horumarno waxaan rabaa inaan ku daro hal xabo kaleeto oo ah waay mucaaradka badan Sufyaan Sheekh Axmed maxaa loo mucaaraday calanka waa garanay laakiin intaan calanku soo bixin waxaa jira mucaarad fara badan oo ku saabsan in lagu mucaarado xaasaska waxaan rabaa in hal xabo aad fahantaan looma ogola waddanka Soomaaliya in uu koro macnaha shacabka Soomaaliyeed inuu koro looma ogola waa siyaasad waaqici ah oo degsan oo loogu talagalay xitaa haddii aad maanta tahay macnaha maanta waxa la yiraahdaa 12 milyan aan nahay we are not 12 millions we are not
ma nihin 12 milyan waa ka badan laakiin inaad sheegato xataa laguma ogola xataa dowladdaadu inay sheegato looma ogola waayo waxaa la rabaa in la jideeyo inaad tahay minority sidaa daraaddeedna la qaato dhulkaaga iyo waddankaaga iyo xeebahaaga dowladaha qaarkood waxay ku doodayaan ama waddamada qaarkood waxay ku doodayaan ayagoo ah 12 milyan ama 8 milyan sida ay dadka qaarkood dowladaha qaarkood yiraahdaan inay dhulka intaa leeg haystaan macquul ma waxaan rabaa markaa inaan walaalahayga shacabka Soomaaliyeed aan weydiiyo khaasatan gabdhaha isoo weeraray oo la raggeed nagu dirtay inaan u sheego walaalayaal arrintu saad u malaynaysan ma taagna nin lagugu diray iyo masayr waxay taagan tahay badbaadada masiirka qaranka Soomaaliyeed wallaahi haddaanan korin haddaanan awood yeelan haddaanan horumar samaynin waddankaas aan ugu yeerno Soomaaliya aan leenahay wuxuu noqonayaa waddan dad kale leeyahay aniga waxaan ogahay wax badan oo dadka Soomaaliya aysan ogeyn aysan ku baraarugsaneyn waxaan ka soo shaqeeyay wax ka soo qabtay la soo shaqeeyay la isoo baray sida waddan loo burburiyo sida population-ka waddankaas loo yareeyo waxaan idin sheegayaa qiso yar waddan ka mid ah waddamadaas Baltiga ayaa waxaa dhacday in dowladdu ay qaadi weysay xanuunkii dadka qaadanayay social security waxa la yiraahdo ama retirement lacagta dadka weyn la siiyo waddankaasi waa Belarusia waxay la heshiisay company Mareykan ku yaala ee soo saara sigaarka waddanka sigaarka aad looga caba waxay ku leeshiyeen inuu ku soo daro nicotine khatar ah oo sababka markiiba dila dadka waaweyn ay u dhima karaan waa lagu soo daray hal sano gudaheed dowladda waxay save garaysay lacag bilaayin dollar inay dilaan dadkaas waxaa jira marka wax la dhaho social engineering in la engineer gareeyo meesha sida guri loo dhisaa bulshada xaqiiqdu waxay tahay marka gabadha Soomaaliyeed u heli diintaada u heli dalkaaga u heli danta iyo diinta islaamka ogolow in ninkaagu uu kula guursado ogolow in aad koriso ama aad soo badiso shacabka Soomaaliyeed tiradooda ogolow inaan noqoto gabar islaama oo ku faanta waddankeeda laakiin aan ku faanin leylama guursan karo gaalka iyo gaala jireenku ma ogola inaan badano waa ka xun yihiin waad aragteen dadka iga soo horjeeda oo dumarka ah waa dumar caariyaada waa naga qaawan waa dad xataa diintooda aan la ogeyn waxay tahay sababta ay saas u taana waxay tahay because of dadkaasi waxay xambaarsan fikirkii wada lagu shaqaysanaa waxaan rabaa marka meesha ugu dambaysa inaan ku daro hal shay dhawaan waxaa la sameeyay account badan oo Facebook iyo all the social media oo lagu sameeyay magaca ama tala ku nool ama aniga magacayga shakhsiyan Sufyaan Sheekh Axmed waxaan rabaa marka wax walba aad ku aragtaan Facebook-ga ha isdhihinina Sufyaan la soo diray waa maasantiin shacabkayga Soomaaliyeed waa jeclahay wali waxaan sugaynaa cadeymihii dadkii aniga iga soo horjeeda ay keeni lahaayeen ilaa haddana ma haya waxaan rabaa marka inaan ka socono arrintaas annagu waxaan wadaynaa shaqada aan hayno shacabka Soomaaliya qarankeena oo ah inaan saxno dhaqamada iyo taariikhaha Soomaaliya ee Talyaaniga uu qalday ee la qariyay waxaan rabnaa inaan bedelo calanka iyo astaanta qaranka wax weyn ma diinna ma waa la bedeli karaa waxaana ceeb nagu ammaantay waxaa sharaf darro ah waxaa wax laga xumaadaa kadib markaad ogaatay in lagu siray inaad weli intaad hambariirsato sii taagnaatid meeshii waa wax sharaf darro ah inaa wajadnaa aabaa'ana xujo maaha caqli maaha dood ma aha haddii aabbaha wax qaldan lagu siray amaba uusan ahayn sidaad adigu u malaynayso inuu ahaa uusan ahayn geesi uusan ahayn waddani
uu ahaa mid u shaqeeya kii adiga yimid inuu ku gumaysto khayraadka qaato laguna abaalmariyo taariikhdaadii inaad maantay sii hogato oo tiraahdo calankaan rabaa wax fiican ma waan islaamaya walaalayaal kooxda talo ku nool iyo aniguba waxaan ka mahad celinaynaa taageerada faraha badan ee naga soo gaartay shacabka Soomaaliyeed waxaan si khaas ah anigu si fiican u mahad celinayaa dadka i taageeray oo difaacay cirdigayga iyo sharaftayda aad iyo aad ba u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh